split line-ka aad soo dhaqaajisay maahay ka kalena waxoogaa soo dhaqaajiso tusaale ahaan saasaad ka kale u soo dhaqaajinaysa marka ereyada mar walba aad rabta inaad cancel garayso ama aad jartaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا بداوديال kusoo dhawaada kanaalka Islamic Technology insha Allah taala maanta muuqaalkan hadii ay bahawooda inoo ogolaado waxaynu kaga hadli doonaa barnaamijka lagu edit gareeyo codadka bacdama dad badan ay iga soo codsadeen oo ay tahay maalinteena codsiyada ka jawaabanay oo ah maalin khamiis ah barnaamijkan codadka ku sameeya ama codadka aan ku edit gareeyo waa barnaamijkan loo yaqaan Lex Audio Editor waana barnaamijka halkan kaaga muuqda barnaamijkani waa barnaamijka ugu fiican lagu isticmaali karo ama lagu edit gareyn karo codadka laguna habeyn karo waana barnaamij si qeyr macquul ah runtii codadka u habeeya marka la joogo mobilka marka barnaamij ka fiican ilaa hadda anigu ma aan arag shakhsi ahaan sida awgeed baan idin la wadaagay waana barnaamijkan codadka ku duuba ma jiro barnaamij kale oo aan codadka ku duuba marka laga yimaado kan aan shaashada ku duubo oo imika kan aan ku duubayo shaashada oo aan codadka isaga si gaar ah codka iyo muuqaalka ay wada duubaya marka mar haddaan codka duubo dib uma edit gareeyo laakiin hadaan cod khaas ah rabo inaan soo edit gareysto halkan aan ku edit gareystaa khaasatan codadkaan ku isticmaali jirnay application-ka Beaname iyo barnaamijyo kale oo lamid ah waxaan runtii ku isticmaalaa anigu barnaamijkan ma ku isticmaalaa loo yaqaano Lex Audio Editor waana barnaamij runtii advanced ah marka barnaamijkan hadii aad u baahan tahay kiyo free ah waxaad kala digi doontaa commentiga ugu horeeya oo ku geyn doona bartaan ku leenahay Telegram-ka insha Allah taala sidoo kale barnaamijkan ha kala degin App Store-ka ama Play Store-ka sababtoo ah waxa uu ku weydiin doonaa lacag ama option badan oo kamid ah ku shaqeyn maayaan marka halkan la joogo sida awgeed waa inaad kala degtaa kiyo free ah 100% commentiga ugu horeeya ee Beaname sida awgeed marka ugu horeysa application-kan soo furanaa marka ugu horeysa markan barnaamijka runtii soo furnay barnaamijku waa kan shaashadan madow ee inoo soo baxday weeyaan barnaamijku sida awgeed barnaamijka waxa loo isticmaalaa chief sida KineMaster oo kale marka waxa laga maarmaan inaan mobilkeena aan chief soo isticmaalo sida awgeed mobilkan marka ugu horeysa soo jiifinayna okay hadda sida ku muuqata runtii mobilkii chief inoo isticmaalayna sida awgeed waxa weeyaan barnaamijkan aynu guda gali doonaa inaan marka ugu horeysa sharaxno halkan muuqaalka ayaa laga daaraa halkan waa laga damiyaa halkan waa shay marka la record gareynayo muuqaalka ayaa lagu record gareeyaa ama waa lagu duubaa kan special case baynu isticmaali doonaa waynu arki doonaa kan isagana waxa weeyaan wax la isticmaalaa marka muuqaalka la rabo in selection-ka laga qaado ayaa la isticmaalaa insha Allah taala waynu arki doonaa dhamaantood halkaas waa meesha lagaga soo daro hadda halka aragto halkaas open ay ku qoran tahay waa meesha lagaga soo daro codad ama codad hore ku duubnaa oo edit gareynaysa halka lagaga soo dari karo weeyaan halkaasna save baa ku qoran active ma aha marka barnaamijka halkan la soo geliyo active noqon doonaa save baa ku qoran marka waa marka barnaamijkaaga export gareyn save gareynayso labadana waa zoom-ka insha Allah taala wayna arki doonaa saddexda dhibcood marka la ku dhufanana option fara badan oo wax jireen ma aan active ahayn laakiin marka active noqon doona aadna waynu isticmaali doonaa sida awgeed hadii ay bahawooda inoo ogolaado marka ugu horeysa waxaan tijaabin doonaa oo aan tasti gareyn doonaa inaan cod ku duubno laakiin waxaan ka iloobay halkan inay tahay timeline wax loo yaqaano oo ah meesha codka lagu jarjarayo ama kawaankii codka lagu qalayo waa halkan marka barnaamijkan insha Allah taala waynu adeegsan doonaa laakiin marka ugu horeysa insha Allah taala waxaan sameeynaa cod baynu duubaynaa markaan cod duubno ayaynu codka edit gareyn doonaa qaabka aan edit gareyna insha Allah taala waan edit tusi doonaa Beaname sida awgeed shaashadeeda ayaan hadda duubayaa cod hadda shaashadeeda barnaamij baan ku duubayaa sida awgeed barnaamijkaasina cod buu duubayaa marka mobilku laba cod ma wada duubi karo oo imika hadaan halkan ku dhufto codkii baa bilaabmaya inuu duubo markaan istaajinayna halkan ma ku dhufan doonaa sida awgeed macquul ma aha in laba cod wada duubmaan laakiin waxaad samaysaa adigu si aad u tijaabiso sideedoo kale marka ugu horeysa halkan ku dhufo kadibna markaad codkaaga dhamaysto ujeedada dhamaysto halkan ku dhufo kadibna halkan ayuu ku soo gali doonaa codku kadibna waan jarjari doonaa sida awgeed aniga suurtagal ma aha inaan laba cod isku kor duubo ama laba cod isku dul duubo marka mid u baasaylan mar walba noqonaya sida awgeed waxa muhiim ah inaan codkayga markaan soo duubo kadib aan isku soo laabano marka waxaan ku xusuusinayaa inaad halkaana ku dhufato markaad bilaabayso codka markaad dhamaystana halkaa ku dhufato okay asxaabta qaaliga isku soo laabasho wanaagsan cod baynu runtii duubnay marka waxa weeyaan codka marka la duubayo marka ugu horeysa halkan aynu ku dhufanay kadibna markaanu dhamaystaan halkan aynu ku dhufanay kadibna thumbnail-kan ay noo soo galeen ama codkan ay noo soo kala diyaarsan
sida awgeed codkan aynu rabnaa inaynu jarjarno insha Allahu tacaala. Marka insha Allahu tacaala kulli casharadu waxay noqon doonaan casharo taxane ah haddii Eebbaha awoodda inoo oggolaado. Waqti dambe aynu ka dhigi doonaa, laakiin maanta waxaan idin tusi doonaa in yaroo shortcut ah oo qof walba uu isticmaali doono. Qof walbana insha Allahu tacaala uu isticmaali karo, qof walba caawin doonta ayaan insha Allahu tacaala maanta idin tusi doonaa. Sida awgeed marka ugu horreysa codkan aan duubay ayaynu dhegeysan doonaa, halkaas ayaynu ku dhufan doonaa. Bismillahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa nabad daawadayaal, kusoo dhawaada kanaalka Islamic Technology. Insha Allahu tacaala maanta waxaynu tijaabin doonaa barnaamijka loo yaqaano Lex Audio Editor. Intaasaynu tijaabinay insha Allahu tacaala. Sida awgeed waynu eegi doonaa horta marka codkan waan soo gelin doonaa. Okay. Qaybta dambe hadda waxaan ku daray inaan hadlo hadallayaan ku dardaray. Sida awgeed waxa muhiim ah marka ugu horreysa qaabka horta codkan loo jaray inaad ogaato, ama tusaale ahaan haddaan tusaale ahaan qaybta aan hadlay oo kale tusaale haddaan iska jarayo, waxaa muhiim ah inaan ogaado qaybtaan iska jarayo. Sida awgeed bal halkan aan horta is keeni doonaa split line kaasaan soo qaban doonaa, laba split line buu leeyahay, kaasaan soo qaban doonaa. Kadibna halkaasaan keeni doonaa, bal waan eegaya waxaan ugu dambeyntii codkaan raba inaan iska jaro. Intaasaynu tijaabinay insha Allahu tacaala. Sida awgeed waynu eegi doonaa horta marka codkan waan soo gelin doonaa. Tusaale ahaan waxaan rabaa inaan iska jaro inta imkan ku hadlayay, intaasaan rabaa tusaale inaan iska jaro. Qaabka aad u jari kartaa waxay tahay inaad split line-ka aad soo dhaqaajisay maahay ka kalena waxoogaa soo dhaqaajiso. Tusaale ahaan saasaad ka kale u soo dhaqaajinaysa. Marka ereyada mar walba aad rabto inaad cancel garayso ama aad jartaa, waa inay tahay ereyada ku highlight garaysan, ama tusaale ahaan marka labadaba soo yara dhaqaajiyo ama labadaba aan centerka keeno, waa inay ereyada noqotaa. Tusaale ahaan haddaan rabo inaan intaasoo keliya jaro, marka intaasoo keliya unba delete garaysmas, intaas ma delete garaysmas. Marka intan caadi bay ahaanaysaa. Sida awgeed hadda waxaan rabaa labada split line soo dhaqaajiyo. Markaad labada split line soo dhaqaajiso meel iskugu keentaba waxa ku imanaya waxa loo yaqaan selection-ka. Sida awgeed selection-kaas waa delete. Sida awgeed marka ugu horreysa halkaas baynu taabanaynaa soo qaybtaas kaga jarno, halkaas aynu ku dhufanaynaa saddexda dhibcood. Kadibna meeshan aynu ka raadinaynaa delete. Kadibna waa tan delete halkan ku qoran tahay, delete waa option-kan. Kadibna waan delete garaynaynaa. U fiirso haddaynu imika dib u dhageysano waxa soo qaadanaya split line-kii, kadibna halkaasaan dhigaya, kadibna waan daaraynaa, halkaasaan ku dhufanaynaa si aan u daarno. kadibna waan dhegeysanaa in wixii naga go'een iyo in kale. Bismillahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa nabad daawadayaal, kusoo dhawaada kanaalka Islamic Technology. Insha Allahu tacaala maanta waxaynu tijaabin doonaa barnaamijka loo yaqaano Lex Audio Editor. Okay. Markaad haddaba wax iska jarjarayso waa qaabkaas oo kale. Markaad tusaale ahaan rabto inaad qayb kusoo koobiyeyso qayb kale, tusaale ahaan halkaas qaybta ugu horreysa aan yara dhegeysto, intaasuna dhegeysto. Bismillahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum. Intaasaan imika highlight garaystay oo kale. Haddaan rabo inaan halkaas oo kale tusaale ahaan soo dhigo, waxa weeyaan waan koobiyeyn karaa. Tusaale ahaan qaabka loo koobiyaa waxay tahay inaad halkaa tagto saddexda dhibcood insha Allahu tacaala. Kadib markaad saddexda dhibcood tagto, kadibna aad ku dhufato barnaamijka ay ku qoran tahay koobi, meesha ku qoran tahay soo koobiyeyso. Kadibna haddana split line-ka soo jiidanaysa, halkii aad rabto inaad dhigto ayaad run ahaantii soo gelinaysaa. Tusaale ahaan ereyada bannaan ee codkaygu wax cod aan lahayn ee arkayso inay codkaygu ama hirir meesha inay bilaa codta waxaad ku garanaysaa hirarka ayaa ka yaraada, ama weyfiska. Hirarka ama weyfiska inaad garanaysaan waan rajeynaya insha Allahu tacaala. Kadibna tusaale ahaan ereyada maran ayaan tusaale ahaan rabaa inaan ku paste gareeyo assalaamu calaykum. Assalaamu calaykum tii baan soo qaaday halkan taalay, kadibna halkan aan keenay. Markaa maan soo goynay, maan soo kadgaray, waan soo koobiyey. Kadibna halkaas saddexda dhibcood aan ku dhufanayaa. Kadibna halkaas aan ku paste gareynaya, u fiirso. Kadibna paste waad ku qoran tahay, waa ku dhufanaysaa. Bal imkaan dhageysano. Bismillahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum. Halkaas assalaamu calaykum soo kuma bilaabayso. Okay. Waxaan rabaa inaan halkaa ilaa halkaas koornayaasha aan kala geeyo, kadibna aan caadi soo dhageysto. Bismillahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa nabad daawadayaal, kusoo dhawaada kanaalka Islamic Technology. Bismillahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum. Insha Allahu tacaala maanta waxay okay. Halkaas bartanka bismillahi raxmaani assalaamu calaykum mar kale kusoo noqoto, sababtoo aan kusoo koobiyeyni. Marka koobiga iyo bastiga iyo sida wax la iskaga jarayo, sida qayb loogu soo koobiyeyo wayna fahnaa insha Allahu tacaala rajeynaya. Sida way diyaar uma yihiin aan sii wado qaybtan. Waxa weeye waxaan rabaa inaan tuso qaabka codka loo sifeeyo, ama background music looga sifeeyo, ama background music yaanan ku oran, background voices-ka tusaale looga sifeeyo. Tusaale ahaan anigu waxaan joogaa meel jawi degan horta marka ugu horreysa ku duubaysaa, sababtoo aad ma haysatid qalab saa'id ma haysid. Jawi degan meel markaad ku duubto, kadibna waxoogaa background-ka kaa yar fog sida baabuurta sanqadhooda laamida ka baxaysa, waxyaabahaas oo dhan waa iska duubi kartaa, laakiin cod kula mid oo agtaada jooga ma jari kartid. taa horta ogsoonow mar walba jawi degan inaad ku duubto waa muhiim. Warbaahin kastaana jawi degan bay raadisaa wax ku duubtaa, ama cid kastoo wax duubtaa. Inkastoo qalabyo fara badan oo imika aad wax u kala saaray very smart ay jiraan, haddana jawi degan ayaa mar walba lagaaga baahan yahay. Marka anu hadda wax microphone ma isticmaalayo, adiguna wax microphone u isticmaali maysid. Haddaad microphone haystana way ka sii fiican tahay ku duuban karto mobile-kaaga sida earphone-ka kale intaad u geliso aad ku duuban karto, wax badan baad kaga maarmi kartaa.
laakiin aad soo kharash garayso adigoo YouTube-kii lacagba ka soo saarin ama barihii bulshada aan lacagba ka soo saarin adigu aad maal gelisaa wax fiican maaha sababtoo ah maba hubtidba inaad lacag ka heli doontid iyo in kale sidaa awgeed waxaan kugula talinayaa inaad sidan caadiga iskaga duubato aan aniguba iskaga duubanayo marka waxa weeyaan xoogaa background voice-kaynu ka saari doonaa ama codkaynu yar sifeyn doonaa marka ugu horeysa tallaabooyinka ugu horeeya la qaadaya waxay tahay qaababka codadka loo duuba loo sifeeyaa way fara badan yihiin waxaana jira option aad u fara badan oo in ilaa hadda aynaan ka soo goyoon karayn laakiin waxaan idin tusaya wax yaro shortcut ah marka si aan wax yaro shortcut aan idin tuso ama run ahaantii fudud waxaad sameynaysaa marka ugu horeysa waxaad tegi doontaa insha allahu tacaala halkaas saddexda dhibcood ayaad ku dhufan doontaa kiyo aan waxba kuu select garaysnayn kadibna marka saddexda dhibcood aad tagto cafwan hadda qaybtan active nooga ah sababtoo ah mad garanaysaa waxba inoo daaran kan ayaan active ahayn marka kaas waa in marka horeysa active aanu noqon kaasaan ku dhufan doonaa kaa markaan ku dhufano kadibna markaan ku dhufano in active markuu noqdo saasoo kale uu noqdo oo caddaanku ka yaraado ayaynu halkaa ku dhufan doonaa saddexda dhibcood kadibna waxaad ku dhufan doontaa halkay ku qoran tahay effects kadibna waxaad ku dhufan doontaa halkay ku qoran tahay normalize ayay ku dhufan doontaa normalize markaa ku dhufato halkan waveskii way dhaadheeraadeen ama aad bay isku bedeleen codkuna waa isbedeli doonaa dabcan waad dhegeysan kartaa waana tijaabin kartaa mar labaad halkii ku noqonaysaa effectskii kadibna waxaad ku dhufan doontaa meel ay ku qoran tahay compressor house baad u raadin doontaa meelaha ka raadin doontaa compressor baa ku dhufan doontaa compressor markaa ku dhufato qaybahan oo dhawaynay sidan ku ahaadaan hal mar baad sixi doontaa hadda kadib inaad saxda kaagama baahanayso hadda kadib apply baad ku dhufan doontaa laakiin marka ugu horeysa qaybtaasi waa inay kuu noqotaa -32 kaasi waa 8.4 kuu noqotaa kaasi waa inay 400 kuu noqotaa kaasi waa +21 waa inay kuu noqotaa kadibna waa play garayn kartaa waad check garayn kartaa codkaagu sida uu yahay laakiin apply inaad ku dhufato ayaan kugula talinaya waayo waa shortcut anigu aan isticmaalo weliba tijaabiyey kadib marka saas oo kale ay kuu noqoto codkaagi markuu qaabkaas oo kale codkaagi kuu yahay ama qaabkan oo kale markuu codkaagi uu noqdo ayaad mar saddexaad haddana halkii baad ku noqonaysaa waxa ku effectska ku noqonaysaa haddana waxaad raadinaysaa meel ay ku qoran tahay noise reduction waa tan codkoo dhan yarayn doontaa waana option kan ay ku qoran tahay noise reduction baa ku dhufan doontaa kadibna waa ina qaybahan oo dhan sidan ku ahaadaan u fiirso kaas waa inay 10 ku noqotaa 10% waa inay 10 ku noqotaa 122 waa inay noqotaa 7772 waa inay noqotaa halkana waa inay noqotaa maxay halkan markaa kadibna halka apply baad ku dhufan doontaa kadib waxay ka caawin doontaa in codkaaga ama codka run ahaantaad isticmaalaysaa mar walba inuu noqdo mid saafi ah ka caawin doontaa kadibna markuu xoogaa yara wareego waa kan imika waxa weeye noise reduction buu sameeyey ugu dambeynta waxaad ku noqon doontaa normalize aad markii hore ka timid ayaad ugu dambeynta ku noqon doontaa saddexdii dhibcood aad ku noqon doontaa halkan ku dhufan doontaa kadibna normalize baa ku dhufan doontaa saas bay ku dhan tahay dad codkan dhageysto codkan waa saafi codkan sidoo kale waa dalacan yahay kor buu dalacan yahay waa cod dheer waa cod saafi waa cod fiican kadibna balwani apply garayn doonaa halkaas inuu ku dhufan doonaa wax badan baa iska bedelay runaantii بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وداوديال كسول وهذا قناة Islamic Technology بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم إن شاء الله تعالى waa codkaynu tijaabinay markaan ku beesti gareynaa mar labaad soo noqday okay no problem waxa weeyaan qaabkaas runaantii u isticmaali doontaa waana qaabka ugu fiican ee codkaaga u edit gareyn karto waana qaabka codadka loo jarjaro copy paste iyo waxa loo sameeyo intaa kadib haddaad rabto inaad save garayso halkaasi waa inaan active ku ahayn halkaas ku dhufan doontaa kadib marka halka active aanay ku ahayn kadibna halkan save ay ku qoran tahay ku dhufan doontaa codkaagii kadibna halkan waad iska tirtiri doontaa waxaad ku qoran doontaa tusaale ahaan codkaaga magac baa u bixin doontaa marka codkaaga magaca u bixiso kadibna halkan dhan ay ku qoran tahay ku dhufan doontaa kadib waa in halkani ku tahay mp3 halkaas fiirso mar walba halkaas waa in mp3 ku tahay dad taa ugu dhufato waxa ku soo bixi doona noocyada kale ee codadka marka mp3 ga ugu sareeya mar walba iska dooro mp3 marka ku doorato kadibna magacna ula baxday waad save garayn doontaa marka faylka aad save garaysay ma dhow toole magaca ula baxdun baad ku raadin doontaa marka faylkaasi waad ka heli doontaa insha Allah taala waxaan rajeynayaa aad iyo aad insha Allah taala u fahanteen ugu dambeyntii waxaan jeclahay oo aan idin xusuusinayaa inaad halkan kaga soo dari kartaan cod hadda halkan ku dhufataan wuxuu ku geyn doonaa meelo codadku kugu jiraan aniga halkan codad fara badan baa igu jira oo aan isticmaalo wax ku edit karaya marka codadka halkan kugu jira insha Allah taala aad ka heli doontaa marka ku dhufatana waad soo gelin doontaa marka waa intaas weeyaan dhamaantii insha Allah taala aad fahanteen waan rajeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh